kuma laha dalka siisay saldhigga military annagu se dalkayga saldhigyada kule oo jarmalka iyo shiinaha iyo maraykanka iyo dalal kale oo ku sheegay dhammaan safaaradii kooda leeyihin marka ma jirta sabab dal aan aqoonsi haysanin oo aan dalka wax siinayana aan safaaradiisaan haysanin oo u siiyey saldhig military arrintaas saad u aragtaa cabdiweli waa aad baad umahadsan tahay jabuuti waa dalaynu jaarna nahay saaxiibna nahay waxaa hubaalaha ninkaasu waxa uu sheegay 12 malaa dhowr iyo 10 qodob buu sheegayo oo yiri saldhigu dalkiisa uu ugu wanaagsan yahay intaas soo dal ayaa keenay su-aashu waxay tahay ama isaga ha noqdo su-aal geliyey jiritaankeenna ama aqoonsi ku sababeeyey ama ha noqoto xamar ama ha noqoto puntland waa maxay sababta ummadda reer somaliland ay isu weydiin weyday nin kasta oo jamhuuriyadda somaliland ka soo horjeeda cadawga jamhuuriyadda somaliland oo jiritaanka jamhuuriyadda somaliland su-aal gelinaya ama xamar oo kaleba oo leh somaliland maba jirtay annaga naga mid yihiin ama puntland ama nin kale oo somaliland u dhashay oo jeclayn dee malaha isaguna arrinta dee xamar jecel arrinta xamar jecel waa maxay sababta ay u diidan yihiin inaynu saldhig yeelano waxa weeye waxaa la arkaa wuxuu keenayo waxaa la arkaa inuu keenayo saaxiibo waxaa la arkaa wadalal waaweyn oo adduunka ka mida ay somaliland maanta markii ugu horreysay kusoo xidhmayaan waxaa la arkaa mashaariicda kale ee ka dambeysa ee maxaan ku dhahdaa saldhigaas uu keenayo war waxaa la yidhi waxa dee umusha udana ayaa ilmahana udana soomaaliya horta waxa Djibouti hadday dhowr iyo 10 bees u dan yihiin waxaa hubaala somaliland beeska u damiya hadduu inankaas uu sheegay hadlayuu yidhi Djibouti dhowr iyo 10 bees Shiina iyo Maraykan iyo Faransiis iyo Jarmal iyo wax oo dhan midba jeebaan gelinaya ummadda jamhuuriyadda somaliland maxay u fahmi leeyihiin inaynu innagana ay faa'iideen oo tahay leeyahay isu jirno waa garanaysaa inaan fahanto sida waxay horta anu ma fahmin ninka ku doodaya maanta jamhuuriyadda somaliland u dhashay ka soo qaad wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani xalata warbaahimaha marayay ee lahaa maxaan ku dhahdaa markaan soo noqdo hadaa la yiraahdo xukunkayga yimaado baan warbaahimaha marmaraya xukunka dheer maada soo soo horjeeda maxaan ku dhahdaa mashaariicdii iyo horumarkii jamhuuriyadda somaliland iyo nabadgelyada badeena aanu ku ilaalinayno muxuu fahmi waayay gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi muxuu fahmi waayay Djibouti inay dhowr iyo 10 bees ay haysanayso innagana ay leedahay wiidii wuxuu yahay oo ma sameyn kartaan oo global baa idinku sameeyay maxaan ku dhahdaa aqoonsi la'aan baa maxaan ku dhahdaa ayaan idinku sameeyay muxuu fahmi waayay inay xamar ka soo horjeedo maxaan ku dhahdaa military base-ka muxuu fahmi waayay Puntland inay ka soo horjeesto muxuu fahmi waayay nin kasta oo aqoon-yahan isku sheega oo aan jeclayn jiritaanka jamhuuriyadda somaliland inay jirto in maxaan ku dhahdaa aanay doonayso base-ka somaliland isagoo ah ninkii saddexaad ee dalkan ka talinayay waxaan leenahay ummadaada iyo xildhibaanadaadii 28 ahaa iyo 144 ahaa gudoomiye soo raac tani taladu ku jirta tani qarannimadu ku jirta tani ummad midda kale warday marka lama arag nin intuu gobol wadan xukumo nin saddexaad ah oo gudoomiye ah oo musharaxa oo diidan golihiisi iyo golihii kale guurtidu waxa ansixiya taariikhda bay dalna ka soo helimaysa aqlabiyad bin dimuqraadi weyn aqlabiyad bin dalka ku xukunaa soo garan maysi Djibouti cabdiraxmaan dib u eeg wuxuu yiri cabdiweliyo markuu idin mariyay shaqato inaa weydiisaan bay tahay oo tiraadaan maxaad u eegay Djibouti waxay Djibouti uu ninkaas u lahaa aqoonsi malaha somaliland oo la aqoonsan maayo maxay xamar u diidanta aqlabiyad baa dalkan lagu xukumaa hadduu maalintii naga badin lahaa anagu waanu sheegno waan dee shuruucda qarankaan raacin hadduu ta BBC da dhageysanayo
iyadoo la doonayo xabar doodayso wasiirkii madaxtooyada ayuu cabdiraxmaan gudoomiyihii baarlamaanka ka soo horjeestay markaasuu ku raacay cabdi ismaaciil samatar oo jiritaanka jamhuuriyadda somaliland aan doonayn inay jirtaba oo dhowr jeer yidhi waxaan ku raacsanahay ma garanaysaa professorka su'aal kale